السلام عليكم جودمر وبرنامج عن ugu talagalnay in aynu nuucda buugaagta miida ah ku guudmarno inagoo qofkii akhriyayna xasuusinayna kii aan akhriyayna u guudmarina buugeena koobaad ee barnaamijkani waxa uu noqonayaa buuga cajabta badan ee socdaalka samada toddobaad waxa qoray nin carab ah oo magaciisa la dhaho cali fiifi waxaana afciliyay oo inoo turjumay ustaad cabdixakiin obsiye oo waayadan dambe buugaag waxtar badan leh oo kuwii hore loo turjumi jiray ama loo qori jiray wax badan ka cudoon ku darsaday caalamka akhriska dhiganahani waxa uu ka hadlayaa 10 magac oo kamid ah magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala 10kaas magac waxa uu u dul istaagayaa hab cajab badan oo weer kastaaba ay mid kale ka daran tahay isaga oo xog kasta oo uu sheego isku dayaya in uu ku saleeyo nolosha aynu hadda noolnahay kuna dhidba dhacdooyin qoyan oo dhawaan iyo goor aan fogeynay waxa xaqiiqo ah in uu dhiganahani gabi ahaanba bedelayo qaab fikirkaagi iyo adoon aragaagi kaana dhigayo mid qalbigiisu qoyan yahay ilintiisu fududahay samirkiisu badan yahay fahamkiisu sareeyo waxtarkiisu weyn yahay alle ku xidhnaantiisuna ay aad u sareyso sida aad magacaba ka milicsanaysa ee loogu bixiyay socdaalka samada toddobaad isaga oo qoraagu ka hadlaya magaca alle ee asamad la irkade ayaa waxa uu yiri humaagyadaadu waa mugdi haddii aanad alle xasuusan garaadkaagu waa kharaab haddii aanad magaca alle xasuusan riyooyinkaaguna waa biyo fadhiisino wasakhaysan haddaba aminta aad biyo fadhiisanadan ku dhaxusta allaha nool ee aan dhimanayn ayay isu rogayaan wabiyo dhir iyo shimbir heesaya mar kalena isaga oo ka hadlaya magaca alle ee alxafiid ilaaliye ayaa waxa uu yiri rabbiga xafiidka ah ayaa ku xifdinaya diintaada balse kuma ilaaliyaan xogaha ku kaysan maskaxdaada ha ku dagmin aqoontaada kitaabka alle ee aad qaybsan tahay iyo sunnada rasuulka ee korkaaga ka muuqata ilaah baa aan ku dhaartay ee waad lumi doontaa haddii aanu xafiidku ku dhowrin diintaada sidoo kale hadallada aadka u la yaabka badan ee dhiganahan ku duugan waxa ka mid ah hadal uu yiri markii uu ka hadlayay magaca alle ee alladiif tudid badane oo ahaa inkasta oo ay xeel dheer tahay awoodiisu inkasta oo ay weyn tahay aqoontiisu aanu arkayo adoomihiisa haddana waxyaabaha uu ku koobo adoonka ee ah hanuun maamuus iyo samafal waxa ka muuqda turidiisa iyo raxmadiisa hadalka ugu dambeeyay ee aynu ka soo qaadanano ayaa ah alle sabab la'aan buu kugu bogsiyaa sababta ugu liidata ayuu kugu bogsiyaa sababta ugu la yaabka badan ayuu kugu bogsiyaa sidoo kale waxa uu kugu bogsiyaa shay aan u muuqan sabab ama sabab la'aanba waxa uu kugu bogsiyaa dhirta dawo kaliya kuwa la isku dardaray iyo cuntada iyo cabitaanka ugu dambeyn waxaanu baraarujinaynaa in aanu guud markani ahayn mid aad kaga maarmayso xogta badan ee dhiganaha ku duugan ee uu yahay iftiimin iyo in uu qofku fahmo xogta guud ee uu dhiganuhu ka hadlayo assalaamu calaykum